weerarkan wuxuu ahaa mid sida muuqato ciidanka SSC qaatuma ay sii qorsheeyeen aroornimadii saaka ayayna ku bilaabeen furinta dagaal ee Maraaga oo ahaa difaac adag oo muddo 6 bilood ah ciidanka Soomaaliland ay ka difaacanayeen saldhigooda weyn ee Gooja Cadde sida muuqata ciidanka SSC ayaa la wareegay deegaanadaasi dagaalku ma uusan istaagin oo waxay sii aadeen ciidanka SSC saldhigii weynaa ee 7 bilood colaada ay ka socotay ee Gooja Cadde kaasoo daqiiqadii hadda la soo dhaafay ay SSC qaatuma ciidankeeda si rasmi ah ula wareegeen gawaari la qabsaday oo astaanta militariga Soomaaliland ay ku sawiran tahay ayaa jira sidoo kale maxaabiis ayaa Soomaaliland laga qabtay saldhigga Gooja Cadde markii la galay waxa ka muuqday inay ahayd xarun militariga Soomaaliland ay bilooyin badan dagaalka ka soo abaabulayeen fariisin culusna u ahayd gawaari ayaana halkaas loogu tagay isugu jira kuwa militariga kuwa saadka iyo kuwa kale oo fadhiid ah oo halaysan dagaalku inta badan hadda wuu istaagay lama oga ciidanka Soomaaliland ee Gooja Cadde ka baxay halka ay aadeen haddii xaalka sida hadda uu yahay uu ku sii socdo waxay noqonaysaa guushii ugu cusleed ee ciidamada deegaanku ay gaareen Soomaalilandna waxay ku tahay dhabarjab xoog leh mar haddii saldhigii ay wax walba ka soo agaasimayeen lagala wareegay